magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa laga furay koob isboorti oo kubadda kolayga isla markaana loogu magac daray Xaaji Aadan Xaaji Baro Wiish oo ka mid ah garsoorayaasha kubadda kolayga ee dalka Soomaaliya. Xaaji Aadan Xaaji Baro Wiish ayaa ku geeriyooday 4 bishan magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya asagoo halkaas ay kula geeriyoodeen qaar ka tirsan halyeey sare oo ka tirsan isboortiga Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Saciid Mugambe iyo halyeey sare Mawlid Macaani Maxamuud. koobkan waxaa soo qaban qaabiyay organisationka la yiraahdo Ilamos oo ka dhisan dalka Canada. sidoo kale koobkan oo ka hadleen dad aad u fara badan isla markaana magac ku leh isboortiga Soomaaliyeed oo haatan ka qayb gala furitaanka koobkan isla markaana loogu magac daray Xaaji Aadan Xaaji Baro Wiish socon doonana ilaa iyo 2 bisha soo socota. furitaanka koobkan ayaa waxaa ka hadla dad aad u fara badan oo magac ku leh isboortiga Soomaaliyeed waxaana hadaladoodii ka mid ahaa horta marka ugu horeyso fursadan aan maanta isugu nimid waxa waaye fursad aad u naxdin badan oo ku saabsan geeridii walaalaheen bahweynta isboortiga qiimaha nagu lahaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. dhammaanteen waxaan nahay mayd wada socdo iyagana ilaahay jannada firdaws allah ka waraabiyo annagana waxaa muhiim ah inaan ku cibro qaadano in nafta meel ay soo jirto aanan la ogeyn. sidaas darteed waxaan ku dardaarmi lahaa in marka ugu horeyso midnimo la raadiyo. waxaan taxis u dirayaa dhammaan intii ku geeriyootay qaraxa ilaahay samri iimaan allah naga siiyo gudoomiyaha Olombikada Wiish Saciid Mugambe iyo Mawlid Macaani allah u naxariisto. waxaa kaloo iga dardaarana waxaa lagu celceliyay hala midoobo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. maanta anuu ka faa'iideysanaya munaasabadan waxaan bahweynta isboortiga uga tacsiyeynaya geerida naxtinta leed oo ku timid Aadan Xaaji Baro Wiish Saciid Maxamuud Nuur Mugambe iyo Mawlid Macaani Maxamuud allah u naxariisto. munaasabadan oo qaaliga ah oo maanta lagu xusaayo qolooyinkii halyeyga ahaa isboortiga oo waqti dhow ku geeriyooday tiyaatarkii xamar ayaan caawa u barordiiqaynaa ama u tacsiyeynaynaa. niman isboortiga waxaa ka mid ah ninka la yidhaahda Aadan Baro Wiish iyo Mugambe iyo Mawlid saddexaas nin oo kala ahaa gudoomiyaha guddiga Olombiga iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta iyo Mawlid oo ahaa nin garsoore weyn oo caalami ah oo wax badan ciyaaraha ka soo shaqeeyay. horta arrintaas aad baan ugu tacsiyeynaa waana ka xunnaa waan u baroordiiqaynaa. bismillaahi raxmaani raxiim. intii dhibata allah u naxariisto gudoomiyihii guddiga Olombikada Soomaaliyeed marxuum Aadan Xaaji Baro Wiish gudoomiyihii kubadda cagta marxuum Saciid Maxamuud Nuur Saciid Mugambe Mawlid Macaani iyo dhammaan intii la geeriyootay dhibka shilkaas dhacay allah u naxariisto. midda labaad waxaan habeenkan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno furitaanka barnaamijkan ay soo qaban qaabiyeen iyo dhammaan Cali Cusmaan dhalinyaro kale oo badan meel kasta adduunka la joogo oo tacsiyada ay soo dirayaan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. dadkii iga horeeyay waxay ka wada hadleen kulli ka dhawaajiyeen ee waxay dhaheen midnimada nin kasta uu rabaa laakiin midnimada guri ila la jooga maaha. midnimada waa in banaanka la yimaadaa. dadka waa tusaynaa haddii tayn arki waayeen waa tusaynaa dadka. koobkan ayaa waxaa ka qayb qaatay 4 kooxood isla markaana halkaana ay joogaan macallimiin aad u horsareysa isla markaana soo dhisa kubadda kolayga Soomaaliyeed. kooxda Ilamos ayaa la aasaasay sanadii 2002 magaalada Toronto ee dalka Canada. koobkan ay ka hadleen dad aad u fara badan isla markaana ka mid ah halyeeyadii soo maray dalka Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen Cantar Jenye isla markaana Bakin iyo dad aad u fara badan oo isboortiga Soomaaliyeed caan ku ahaa gaar ahaan kubadda cagta iyo kubadda kolayga Soomaaliyeed. dadka ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada in ay aad ugu xun yihiin dhibaatadii loo geysanay dadka isboortiga isla markaana magaca iyo indhahaba u ah dadka Soomaaliyeed. Mahad Carab oo Cali telefishinka Universal Toronto.